qiso jecel oo ku dhacday wiil iyo gabar. Waxay ahaayeen laba qof oo aad isku jecel, laakiinse way kala fogaayeen. Laba wadan ayay kala joogeen. Aad ayayna iskugu faraxsanaayeen. Farxadooda lama soo koobi karin. Waxaa jiray gabar ay saaxiibo ahaayeen gabadha. Waxba kama aysan qarso jirin, waayo saaxiibteed ayay ahayd. waa ayna ku kalsooneed. Waxay uga sheekaysay sheekada jaceylkooda. Waxayna dhahday, waxaan rabaa inaan ku baro dumaashiga. saaxiibkeedana waxay ku dhahday, waxaan ku baraa saaxiibteeda waan aadka u jeclahay. gabadhii iyo wiilkii way isbarteen. waxayna noqdeen dad asxaab ah oo aad isku fahmay. 24 sacne kaftan ciyaar qosol ayay ku jiraan. wiilkii wuxuu ka dhigtay walaashiis iyo dumaashidiis. laakiin muddo kadib gabadha dareen ayay u qaaday wiilkii, ayadoo og wiilkan inay saaxiibteed wax kala dhaxeeyaan. ayay u qaaday dareenkaas jecel. waxayna go'aansatay inay hore u sii socoto, jaceylkeedana u sheegato. way wacday. waxayna ku dhahday, halo, ii waran. waan ku fiicanahay. waxaan rabaa inaan wax kuu sheego. ii sheeg maxaa dhacay. waan ku jeclahay. aniga baan ku jeclahay. laakiin aniga waxaan ku jeclahay jaceylkii lamaanaha, ma ahan midka walaaltinimada oo aad adiga i jeceshahay. dabaali waa waalanta adiga waxaa tahay walaasheeda oo kale. waan ogtahay saaxiibtaada gacalyada inaa ahay. adiga iyo saaxiibtee isma helaysaan. anigii saaxiibteeda waan kala fognahay, laakiinse allah subxaanahu watacaala ayaa maalina kulmi doono. laakiin anigii adiga hal wadan ayaan isla joognaa, waana isku soo dhowaan karnaa, waana midoobi karnaa. ma xumo midaas, laakiinse sidee ugu sheegi karnaa saaxiibtaa? aniga ayaa u sheegaya hadda, kuna qancinaya inay kaa fogaato. markay gabadhii demisay taleefanka, isla markiiba waxay wacday saaxiibteed. waxayna dhahday, ii waran xabiibti, sidee tahay? alxamdulilah xayaati, waan kuu fiicanahay. ii waran adiga? fiican. waxaan rabaa inaan mid kuu sheego. waxaan rajaynaa inaa i fahmi doontid. ii sheeg, waa ku maqlaa. khayr allah ka dhigay. waxaan jeclaaday saahil. waxaan jeclahay jeceyl aan la qarsan waayo dareenkayga. sidee ii dhihi kartaa midaas? macquul ma ahan. labadiina ma midoobi kartaan. waxaan rabaa inaad isdeysaan oo aad kala fogaataan. soore xabiibti, aniga ayaa ku qaldanaa oo si fudud kuga aaminay, garabna kaa dhigtay. ma moodaynin maanta inaad sidaan ii qiyaamayso, kaamana filaynin inaad sidaan igu samaynayso. laakiin waad mahadsan tahay. waxaad i bartay in gabar aan lala saaxiibin. sidaas darteed ha dhihin gabar waxaa tahay walaashay, waayo gabadha waxay wax jeclaataa iyadoo dareemaynin. waxay leedahay dareen ah inay jeclaato qofkii ka qosol siiyo, qofkii daryeelo. waxay jeclaataa qofkii ay ka aragta naxariis. midna ogow, xiriir kasta inuu jeceyl isku bedeli karo, xataa hadduu noqdo jeceyl hal dhinac. sidaas ayaa ku dhacday wiilkii iyo gabadhii.